horyaalkan maanta ka furmay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa maalgelinaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxaana ku tartamaya ilaa 6 kooxood oo heerka koowaad ah oo ka dhisan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. furitaanka tartanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo taliska ciidamada booliska Hirshabelle. waxaa ugu horeen goobta ka hadlay Maxamed Cali Jabane oo ah ku-xigeenka xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo Abuukar Islow Xasan oo ah xubin ka mid ah guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed sidoo kalena ah gudoomiye ku-xigeenka horumarinta maamul goboleedyada dalka. maanta farxad weyn ayay noo tahay inaan imaadno halkan aan ka furno tartanka loogu magacdaray horyaalka heerka koowaad ee Hirshabelle. sanad ka hor ayaa wafdi ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed imaaday halkan asagoo dhindheenayo xaaladda ay ku sugan yihiin ururka kubadda cagta Hirshabelle. report laga gudbiyay wuxuu sabab u noqday in la hirgeliyo lana horumariyo ururka kubadda cagta Hirshabelle. waqtiga loo socdaa saakada in ayaan qabaa inaan ku wareejiyo maamulka kubadda cagta Hirshabelle. dhinaca kale gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow oo goobta ka hadlay ayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed kaga mahadceliyay dadaalka ay ku bixinayaan horumarinta kubadda cagta Hirshabelle. sida quruxda badan ay ugu qayb qaadanayeen ciyaartooyda in la hormariyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed aad ugu mahadcelinahay Ilaahay ka shukr. aad iyo aad waxaan soo dhaweynaynaa horumarka hadda ay noo bilaabeen wasaaradda dhalinyarada isboortiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo wasaaraddeeda waxaan rabnaa annagana ugu filno 6 kooxood keliya in loo qalabeeyo. xaqiiqdii waxaan aad iyo aad u rabnaa in sida garoomadii kale ee gobolada kale loo dayactiray ee roogaga loo dhigay in anagana jaanisidaas oo kale naloo siiyo. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle Korneel Xasan Dhiciso Xasan, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabelle Maxamed Cabdalla Cali iyo kusimaha madaxweynaha Hirshabelle ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Marwe Canab Axmed Ciise. waxaan rabnaa inaan naqadiyo kuwa ugu horeeya gobolada kuwa ugu horeeya Soomaaliya soo guulaysta hadii leeyahay soo dhawaada wadnabaadkii. waxaa farxad noo ah mataqaanaa shaqadan aan qabanay iyo horumarkan mataqaanaa oo lagu soo beegay waqti Ilaahay og yahay in baabuurkan iyo qalabkan quruxda badan u jeedaan ay nagu deeqeen xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. waxaan kaga mahadcelinayaa gudoomiyaha xiriirka Cabdiqani iyo kaaliyihii iyo mataqaanaa horumarinta ninka u taagan Islaaw oo juhdi badan iyo dadaal badan markaan sameynay kadib Ilaahay noo suurageliyay inaan keenno qalabkan aan soo gaarsiino caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. 6 kooxood ma aha mid mataqaanaa Shabeellaha Dhexe kaligeed laga sameeyay ama laga furaayo. إيران ندو إلى إيران واتجهنا أيضا نحكي وكلام سيدا سوكلان كفرينا. waxaan rabaa inaan dhaho xambaliyo guula idin rajaynaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee maanta halkaan keenay deeq isugu jirta wax badan oo kala bedelan oo gaarigu gadaashayda taagan yahay. waxaan leeyahay xambaliyo wasaaradana waxaan leeyahay xambaliyo waxayna ku dhacday gabar ayaa ka ah wasaaradda wasiir saas daraadeed waxaan jeclahay in la bedeli doono garoonkan maanta aan taaganahay. waan jeclahay fariintaasu inay gaari doonto wasiiradayda Khadija Maxamed Dooriye. sidoo kale xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa ururka kubadda cagta Hirshabelle waxay ku wareejiyeen gaarin nooha ah iyo agab isboorti oo loogu talagalay in la siiyo ama ay ku ciyaaraan tartanka kooxaha ka dhisan magaalada Jowhar ee maanta horyaalka loo furay. Ibrahim Cali Nuur, TV Universal, Jowhar.